Smart Optical hoyga muraayadaha ee Hargeysa meheradu waxay ku talaa burjuwo mar dabiqiisa labaad kani waa Nuur kubadda cagtu waa ciyaarta ugu shacbiyada badan leh caalamka waxaana loo ciyaaraa qaabab kala gedisan kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah freestyling footballing Nuur Ismaaciil Liibaan waa wiilad u daayar oo ku nool magaalada Gabiley ee dhacda galbeedka Soomaaliland Nuur waxa uu leeyahay xirfad aad u heer sareysa oo kubadda cagta nooceeda freestyling bismillaahir rahmaanir rahiim ku dhaw walaal Fadhi Xastaan Kibil magacaygu waa Nuur Ismaaciil Liibaan oo kuma dheer amba loo goono yahay Nuur Neymar heerkayga waxbarasho waxaan dhigtaa Golis University Campus Gabiley xaga kale waxaan ka tirsanay wasaaradda horumarinta maaliyadda Gabiley markii ugu horeysay horta waxaan taageeri jiray ciyaartoyga Ronaldinho la dhaho oo fiidiyada daawan jiray markaa waxaan bal go'aansaday inaan isaga wax aanu isagu sameyn markaan isagu wixii sameeyay bal inaan keeno waxaan isagu aanu sameyn inaan wax dhaafsiisan bal keeno amba aan ku soo kordhiyo dunida freestyle aanu qof faraga sameyn inaan bar sameeyo Nuur Neymar bartiisa TikTok-ta waxaa ku taxan in ka badan 183,000 oo qof iyadoo muuqaaladiisa ay daawadeen malaayiin videoiskiisuna ay haystaan like sare u dhaafay 2,500,000 oo qof taageerayaasha intaas faraha leegana waxay hadhiya habeen heegan ugu jiraan inay daawadaan xirfadda wiilkan ee aan la badhaxin iyo horta aalada TikTok korba anigu waan iska jeclaa markii hore inaan iska noqdo freestyler man anigu kubadda caadiga aan iska ciyaaraya markii horena TikTok korba waan iska isticmaalay waan iska qanay qadano inaan barto waan iska jeclaa markii dambana TikTok waxay fududeysay inay dadkii bartaan oo deelay aan ku baahiyo fiidiyodeedii markii hore wallahi waan iska jeclaa Nuur xirfadiisu kaliya ta kuma ee freestyling waa mishiinka khadka dhexe ee kooxda maaliyadda Gabiley والله يرتع عقبضو ده ويسكا فربدين مربط كلا كلا مر ده واسكا فمساهي ده عقبض ده شوك بوكس وجاري كرتا dadka kale waxay soo oran karaan dad waxa ku jira waxa iska daabay qoranayaan dad baa ku caayay dad baa ku dhaleecaynaya markaygi hore bilaabi baan waxaan ayaan go'aansaday inaan marnaba ka laabay ilaa hadafkayga aan soo taabto bartida TikTok kuma soo bandhigo anigoo dadka baraya amba tusaya saan u sameynayo laakiin ma jiraan akaademiye ramba carruur yar yar oo soo saaro oo ilaa imika la duba u jiraan oo waan baraa laakiin waan ku haweenay inaan taana u sameeyo sidoo kale waxyaabo uu sameeyo waxa kamid ah challenges ama bahal xidhaala ah in intuu kubadda soo qaato uu wadada iyada la yimaado waxa sidoo kale wadada keenaa shabag yar ee halka ka muuqda qofkii ayaa kubadda loo dhiibayaa doonayay inuu challenge-gan ka qayb galo kadibna qofka waxa looga baahan yahay inuu ku taraarixiyo shabaga kaasa haddii qofkaasi uu kubadda geliyo shabaga kaasna waxa uu leeyahay abaalmarintu Nuur bixiyaa waxa weeyaan waa muus weeyaan Soomaalidu caan bay daalkan ku tahay cuntadeedana mid waliba waa la socdaa sidaa daraadeed inana maanta barnaamijkan aan Nuur ka diyaarinayno iyo warbixinta tan ah bedelimayna dhaqanka kaasa waxaanu isticmaali doonaa muuskii uu Nuur isticmaali jiray dhowr qof oo reer Gabiley ah ayaabaan u yeeri doonaa kadibna challenge-gan bay nagala qayb qaadan doonaan ninkii shabaga geliya kubadda tan ahna waxa uu ku guuleysan doonaa halka xabbe ee muuska
nuur waa hiba aan la barxin mana haddii garab istaag iyo taakula inuu heli lahaana waxa uu noqon lahaa ciyaartooy Soomaali oo gaaniye